بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka horeysa Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh meel kastoon joogno nasiyay amni caafimaad iyo runtii in aan maskaxdeena iyo aqligeena aynu wax isku sheegno oo isla wadaagno waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii wax fiican aan ka yiraahdo talana ka bixiyo intii karaankayga ah runtii xaaladda ka taagneyd dhawaan maamul goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee khuseysay waxbarashada marka u horeysa waxaad la isku haystaa ama la isku diidan yahay runtii maaha mashaariic runtii maaha arrimo siyaasadeed runtii waa mustaqbalka iyo masiirka ubaxa Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ama Puntland ha joogaan ama maxaanaday federaalka ha joogaan meel kasta joogaan waxyaalo waxa jirto oo runtii aan ama la siyaasadeyn karin ama la gurgurtami karin waxaana kale waxay u baahan tahay ka baaraandeg iyo tanaasulid badan bay u baahan tahay in uusan qofna dantiisa ka eegin inuusan qofna qofka kale ku cadaadin inuusan qofna qofka kale ku imtixaanin balse ay tahay mas'uuliyad wada saaran dhammaan qof kasta oo mas'uul ah oo Soomaaliya mas'uulka ah runtii waajibaad wada saaran waaye sidoo kale qodobkan isaga ah ee waxbarashada ah runtii laba dhinac baan rabaa inaan ka istaago hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaro dhinaca u horeeya waxay tahay waxaan rabaa in halkan kala hadlo oo afariin u diro maamulka Puntland khaasatan shacabka reer Puntland khaasatan dhalinyarada reer Puntland su'aasha aan isweydiinayna marka hore waxay tahay haddaan nahay dhalinyarada wax baratay ee wax ka barata Puntland ee ardayda ah ee iskooleyda ah ee masiirkoodii maanta muranka la geliyay ee masiirkoodii maanta khalkhalka la geliyay horta waxa u horeeyay ee maskaxdeena ku soo dhacda ha noqoto xagee bay wax naga jiraan yaan wuxuu raadsanaynaa yaan la xisaabtamaynaa annaguse masiirkeenan iyo waxbarashadeenan iyo mustaqbalkeenan aadka inaga ugu weyn waalidiinteena ay lacagaha inaga bixiyaan cid noogu deeqda aysan jirin cid nagu garab istaagtaa aysan jirin yaa isku haysta yeesi saamaysaa su'aasha kale oo aan isweydiinana waxay tahay horta annaga mustaqbalkeenan waxbarasho mustaqbalkeenan nololeed maxaan kala soconaa wasiir Goodax markuu hadlayay wuxuu ka dhawaajiyay in muddo 4 sano ah uu soo socday wada hadallada ku saabsan nidaamka imtixaanaadka Puntland iyo maamul goboleedka la soo waafajinayo maamul goboleedka Puntland iyo la soo waafajinayo dowladda federaalka Soomaaliya adiga maxaad kala socotay hooyada Soomaaliyeed ee Puntland degan ee ilmaheeda waxbarashada la rabta ee xoogeeda ugu shaqeysata maxaad ka ogtahay masiirka ilmahaaga maxaad kala socotay maxaanaday dowlad goboleedka Puntland iyo wasiirka waxbarashada Puntland maalin inta iskugu yeedheen waalidiinta Puntland iyo ardayda wax ka barata Puntland ma yiraahdeen war maanta waxan ayaa inagu soo kordhay masiirkiini weeyaan waa dadaasheen anagu waan idin maamulnaa oo kaliya laakiin dadka runtii dadaalka iska leh waa dadka iyo mustaqbalka uu sameeyo dadka reer Puntland horta maalina ma leen soo hor agdhigay maanta markii uu wasiir Goodax Barre uu ka hadlay arrinkaas isaga ah dadkii oo dhan way soo wada qayliyeen runtii dhammaanna waxay xoog wada saarayeen in ay wax dhahaan ama wax ka sheegaan dowladda federaalka iyo Goodax Barre laakiin anigu aragtida ka duwan baan qabaa reer Puntland ha bartaan meesha ay wax ka jiraan reer Puntland ha bartaan in ay bartaan qofka runtii mas'uuliyadaas leh inay la xisaabtami karaan mas'uuliyadu way kala tahay in qof waxaanu qaadanay Puntland waxa qaatay nidaam federaal ah oo ay raali ka tahay waliba waxa la yiraahdaa oo aan nidhaahnaaba Puntland waa hooyada federaalka Soomaaliya haddaba haday hooyada federaalka Soomaaliya ay tahay badankeeda xataa waxa adkaanaysa in ay yani isqabato yani in nidaamkii federalismka ah ee loogu talagalay tayeynta iyo xoojinta dawladda dhexe oo qayb ka ahayd nidaamka federalismka in runtii Puntland ay ka hormaanaysa ayaa qayb ka noqonaysa halka ka soo baxaysa marka waxaan rabaa inaan kor istaago anaga yaa xuraadsanayna horta reer Puntland aan nahay dhalinyaro aan nahay waxbaan baranaa mustaqbalkeena marka u horeysa intayna dawladda federaalka gaarin yaa wax naga maqan yihiin waxaan aaminsanahay oo qof kasta oo aqoon-yahan uu aaminsan yahay marka u horeysa in ay tahay inaad su'aal weydiisaan oo su'aal aan olo noqono wasiirka waxbarashada Puntland iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni marka iyaga la weydiin karaa war annaga sidee noogu dhici kartaa tan ma noola timaadeen ma noogala xaasheen wax ma naga weydiiseen masiirkeena maxaan kala soconay 4 sano ka badan macnaha isjijiidku ka dhaxeeyay maxay u dhici weyday maanta kale waxbaan xukumi lahayn 4 sanadood hadii aan ogaan lahayn meesha ay wax marayaan hadii aan ogaan lahayn nidaamka ay wax u socdaan hadii aan ogaan lahayn waxa la isku haysto maanta waxa u fududaan lahayd reer Puntland in ay xukumiyaan oo ama dawladda federaalka dhahan waad khaldan tahay ama yiraahdaan maamul goboleedka Puntland waad khaldan tahay laakiin maanta runtii social media wax kasta ka aragnay taasina waxay keenaysaa ka warqab la'aanta masiirkeena runtii tan waxbarashada kaliya tamahan arrimo badan oo noocaas oo kale runtii inay jiraan barajeenaya waxaan ugu aaminsanahay reer Puntland iyo dadka social activists ah
iyo dadka baraha bulshada wax ku qora iyo waalidiinta reer Puntland iyo ardayda reer Puntland in maskaxdeena oo degan miyirkeena oo degan anagoo mustaqbalkeena ka fakareyna anagoo reer hebel tayeentiisa ka fakareynin anagoo hebel taageeradiisa ka fakareynin anagoo hebel mucaaradkiisa ka fakareynin inaan ka fakarno war horta anaga baahideena yay ku maqanta war horta anaga baahideena yaa nagu matala war horta anaga baahideena yaa wax nooga qaban kara ka hor goodaha ka hor madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ka hor dowladda federaalka ka hor anaga waxaan leenahay representative ama madaxweyne nagu matala nidaamka federalismka marka madaxweynaha laga yimaado mudane Saciid Cabdullaahi Dan marka laga yimaado waxa kale oo jirta wasiirka waxbarashada Puntland baa jirta runtii taas ayay ahayd inaan marka hore xisaabta aan hoosta ka soo bilowno oo aan gobolka ninka u qaabilsan weydiino oo maamulka ninka u qaabilsan la xisaabtamo oo maamulka ninka u qaabilsan uu la xisaabtamo ninka gobolka u qaabilsan ka gobolka u qaabilsan uu la xisaabtamo wasiirka uu la xisaabtamo madaxweynaha uu la xisaabtamo dowladda federaalka nidaamka soo la xisaabtami karto runtii jaranjaradu inay taa tahay baan rajaynayaa inaan il duufin waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga taxadarno nidaamkan isaga ah qadiyada ah qodobka labaad aan doonayo inaan ka hadlo waxay tahay oo runtii halkan aan baaq uga diray waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka waxbarashada mudane Goodax Bare runtii in taxadar badan laga muujiyo kiiskan isaga ah waxa ku xidhan kiiskan ama mowduucan isaga ah hooyo Soomaaliyeed loo soo rafaaday ilmaheeda oo iskoolka soo bixisay dawlad la'aan soo korisay dawlad la'aan wax soo bartay rafaad iyo dhibaato badan ka soo martay suuqa u fadhiisato runtii oo yaanyo ee ka soo saarta waxbarashadiisa ma ahan wax runtii qof yani ma ahan kiis lagu fududaan karo waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ka codsanaynaa inay taxadaraad badan ka muujiso khaasatan wasiirka waxbarashada mudane Goodax Bare marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay taxadar badan ka muujiyaan runtiina qodobka ugu dambeeyay ku soo celcelinayo waxay tahay ummadda Soomaaliyeed ma taqaano meesha ay wax kaga maqan yihiin ummadda Soomaaliyeed ma taqaano marka ay wax dareemaan cid ehelkeeda ah ay la xisaabtamayaan hadda ka hor waxaan xasuustaa dhowr bilood ka hor khilaaf yar oo soo kala dhex maray maamul goboleedka Jubbaland iyo maxaan ku wasiirka duulistii hawada runtii dad badan oo hadlay waxay aad u dhaleecaynayeen oo aad u maagayeen oo ay furka ku tuurteen waxay ahayd dowladda federaalka marka madaxweynayaasha maamul goboleedyadu maxay qabanayaan wasiirka maamul goboleedku muxuu qabanayaa haddii aan la weydiin karin khaladaadka dhaca ka hor intaan dowladda federaalka la gaadhin miyaysan ahayn nidaamkaasi nidaam baal marsan wax federaal ah isu jirin haddiiba adoo maamul goboleedkaaga jooga aad diyaar u tahay inaad adigu toos u la xisaabtanto dowladda federaalka dee waxaad wasiir isu hordhigtaa iyo waxaad madaxweyne isu hordhigtaaba yani ma isqabanayso marka waxay noqonaysaa inaan nidaamka federaalka intaan raacno aan ilaalino nidaamka federaalka ah oo wasiirkaaga waxbarashada la xisaabtantid oo wasiirkaaga duulistii hawada la xisaabtantid kadib maamul goboleedka madaxweynaha ku matala aad la xisaabtantid kadib isagu uu ku doono wixii ka maqnaa oo isaga laftirkiisa la weydiiyo madaxweyne maxay ku dhacday tani wasiir maxay ku dhacday tani maxay ku dhacday in dowladda federaalka hadalkan tiraahdo su'aasha aad ka aragtid dowladda federaalka jawaabteedu meel kale ha ka raadin waxaad ka raadinaysaa maxay raadey qofka kuma talaad ka raadinaysaa ama madaxweynaha kuma talaad ka raadinaysaa ama fildiga mawduucaas ku saabsan yahay wasiirka ma talaad ka raadinaysaa wasiirka cadaaladda hadduu yahay wasiirka amniga hadduu yahay iyo wasiirka duulista hawada hadduu yahay iyo wasiirka waxbarashada hadduu yahay intaba marka walaalayaal ummadda Soomaaliyeed aan baranno marka wax naga khaldamaan nidaamka aynu ula xisaabtamayno dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada oo aan barano war waxan yaa ehelkeeda hadda kor waxaan xasuustaa keiskii aadka u muhiimka ahaa ee aadka u xasaasiga ahaa runtii aadka u adkaayay Caashilias ee ka dhacay Puntland hadda kor waxa dhacday dhalinyaro arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah reer Puntland ah soo banaabaxay wadooyinkii iyo jidadkii bay xidheen waxaana maray meeshaas hooyo Soomaaliyeed baa ku ganacsanaysay oo wadada wax la fadhiday mid yar oo bajaajlaaba meesha maxaa ka shaqaysanayay gaadiidkii dadweynaha bay xayiraad galiyeen laakiin waxa ka maqnayd oo kaliya war Caashilias xuquuqdeeda xageen ka raadinayna inay Soomaaliya ilaa haddana tiiba waxaan leeyahay haddana xuquuqda waxbarashada ee Puntland dhalinyaradeedu ay ku gorgortamayaan ay ka hadlayaan ha isweydiiyaan xagee ayay naga xigtaa yaan ka raadsanaynaa yaa ehelkeeda waxaan aaminsanahay oo sida sharciga ay tahay oo nidaamka wadanka noqotay ay tahay walaalayaal waxa la isku xadba waa khalad yani waxa la gaalka dil gartiisana si nidaamkan anaga aan qaadanay waa nidaam isku xidhaya qofka yani waa nidaam jaranjara ah oo federaalka waxa la yiraahdo wax isku xidhan maaha adoo maamul goboleedkaaga joogo Puntland joogo ama Jubbaland joogo ama Hirshabelle joogo ama Koonfur Galbeed joogto hadda doonaysid inaad farmaajo iyo khayr iyo wasiirka waxbarashada aad la xisaabtantid de iskaga soo tago xamar iyo marka adigu ha soo dhaafin wasiirkaaga ha soo dhaafin adigu ha soo dhaafin madaxweynahaaga ha soo dhaafin adigu ha soo dhaafin nidaamka aad doortay ee lagu matala ha soo dhaafin la xisaabtan cidda ay wax kaaga maqan yihiin la xisaabtan ardaydii marka Soomaaliyeed wadada xidhatay kiiskii Caashilias ka mudaharaadayay barxadda ugu tagay waxaan ku yiri
meeshan aad ka banaan baxaysaan walaalayaal xuma yaalaanba عشان wax ugu qaban maysaan idinkana energy iyo waqti qorrax baad kaga baxaya qof Soomaaliyeed oo miskiin oo ganacsanayaan caqabad baad ku tihiin taas aada wadada guriga Saciid Cabdullaahi Dani aada xidha wasiirka amniga xidha wasiirka haweenka oo gabadh haween maadaama Puntland ay dhibaatotay saddexda wadaba idinkaga filanba inaad wadadan aad dadweynaha xidhataan taas waxay ku tusaysaa runtii in aynan u bislayn nidaamka federalismka nidaamka iyay wax naga maqan yihiin yaan wax ka doonanayna taas waa mid ugu dambeyntii dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama maamul goboleed ha joogaan ama federaal ha joogaan ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogaan walaalayaalow adduunkan waa laga tagay horta haddaad rajo ka leedahay oo aad leedahay nolol oo weligaa ayaad haysanaysaa runtii taas waad ku hunguusan tahay walaa farmaajaan joogeen walaa dani baan joogeen walaa aniga kula hadlayaan joogeen walaa adiga ay daawanaysaan joogeen walaa calanka reerkaaga iyo calanka maamul goboleedkaaga aan kafan lagaaga dhigeen walaa kan aniga Soomaaliyan kafan lagaaga dhigeen waa inaan runta isu sheegnaa dadka Soomaaliyeed bini aadanka walaalaheen aan ku xadgudbin xasaanada qofka bini aadanka aan ilaalina walaalnimada iyo dadnimada aan ilaalina baranaana cid wax naga maqanta waaba intaas oo kaliya haddaadna la xisaabtami karin wasiirkaaga waxbarashada kugu matala Puntland ee ku matala waxbarashada aad la xisaabtami kar weeyday waxaad ku qabsataa godax barwaa qalad haddaadan la xisaabtami karin madaxweynaha maamul goboleedkaaga mudane Cabdullaahi Dani Saciid Cabdullaahi Dani waxaad farmaajo u soo qaaday baraha bulshada ugu soo qaadaa waa khalad gaalka dilgartiisa rasi nidaamka federaalka waxaan u qaadanay in isku matalo haddii marka iyaga aadan wax oran karin oo iyaga aadan wax yeeli kareenin walaal billah alayk dawladda federaalka waxaad u qabsatid iyo waxaad qof mas'uulaho kale aad runtii aad u aflagaadaysaa waa khalad taas khalad aad weyn baan u arkaa adigana walaalkayga Soomaaliyeed waa kugu wacyi gelinaya in maadaama waxana ay aqoon tahay oo dadka aqoon yahaneynta ay saameynayso oga hadalno si aqoon ku dheehan tahay si taxadar ku dheehan yahay si walaalnimo ku dheehan tahay si Soomaalinimo ku dheehan tahay aniga haddaan Puntland joogo dan iiguma jirto runtii waxa walaalkayga Soomaaliyeed Jubbaland jooga walaalkayga Soomaaliyeed Hirshabeelle jooga walaalkayga Soomaaliyeed Koonfur Galbeed jooga walaalkayga Soomaaliyeed Muqdisho jooga wax uu san rabin inaan anigu naftayda la jeclaado waaba de wax soconaya ma aha inaan ka haro oo khayrkay ka harana ma fiicna marka nidaamkan reer Puntland waa dad runtii aad u bisil waa dad qadiyadoodu aad u wanaagsan tahay waa dad ehel u ah nidaamka ilbaxnimadii xadaarada yeynaan baalmarin in badan ba waxaan ku soo celceliyay يعني waa la dhawrtaa magaca waa la dhawrtaa sharafta waa la dhawrtaa maanta haddaan nidhaahno dawladda federaalka ah oo hooyada federaalka ah oo federaalnimadii baan soo dhisnay maanta inaynu anagu diidno shuruucihii federaalka soo saartay iyo waxyaalihii dawladda federaalka tageynayay runtii ceeb bay ku tahay reer Puntland runtii ceeb bay ku tahay reer Puntland ha ka dhigiyaan qadiyadan iyada reer Puntland ha ogaadaan cid wax kaga maqan tahay wiilka Soomaaliyeed ee gabadha Soomaaliyeed ee ardayga Soomaaliyeed cuqdad u qaaday maanta dawladda federaalka oranay aniga mustaqbalka hor taagan tahay waxaan ku sheegaa xataa mustaqbalkaaga dawladda federaalka hadii hor taagan tahay khaladkeeda ninka ku matala ayaa iskale madaxweynaha ku matala ayaa iskale wasiirka ku matala ayaa iskale weydii la hadal idinka dawladda federaalka maxaa idinka dhaxeeya 4 sanadood baa mustaqbalkaygii maxaan ku dhahdaayay laga soo murmayay way leeyla socodsiin waay way waalidka loo shirin waay maanta oo la soo gabagabay oo go'aanka u dambeeyay dawladda federaalka ay qaadatay sabab ku ogaaday aniga mustaqbalkayga iyo masiirkayga dhan oo 12 sano soo dhiganayay su'aalahaas oo dhan weydiiso oo la xisaabtano way tahay oo dhacmeed sida u sareeyaan baa loo kala qaadaa baa leeyahay